وفريتانka mashruuc dib loogu habeynayo wadada weyn ee bartamaha magaalada Garowe wajigiisa koowaad ayaa loo qorsheeyay inay ku baxdo 125,000 oo dollar oo ah boqolkiiba 50 lacagta guud ee lagu talagalay inay ku baxdo oo dhan 250,000 oo dollar oo laga ururiyay shacabka gudaha magaalada Garowe lacagtan oo ka badan lacagta GBLG-ga ku baxda ee magaalada Garowe ama lagu bixiyo ayaa dadka looga ururiyay qaab tabarucaad ah iyadoo loo raacinayo hal dollar bixinta biilasha korontada iyo biyaha waxaana ururintan u xilsaarnaa guddiga horumarinta magaalada Garowe Dr. Cartan oo kamid ah guddiga horumarinta magaalada Garowe ayaa ugu horeyn ka hadlay qaababka ururinta lacagtan Garowe waa noo dhibatay Garowe aan ku soo celinay annaga barnaamijkeedu kaas weeye ilaa iyo hadda wixii soo gaaray oo reer Garowe ay bixiyeen waxa weeye 142,000 wadarta xoolaha soo gaaray lacagta soo gaartay lacagtaas iyaga ah oo idinku aad ku ururiseen labada company labada shirkadood waaweyn Nexum iyo Nowaco lacagta iyada ahayd qaybteedii koobaad maanta oo 125,000 waxaanu gelinaynaa dayactirka jidkan weyn oo magaalada bartamihiisa duqa degmada Garowe Axmed Saciid Muuse Axmed Barre ayaa isaguna halkan ka hadlay waxana uu sheegay wajigiisa koowaad ee mashruucan in lagu dayactirayo 2.5 kiiloomitir oo u dhaxaysa barxadda weyn ee magaalada Garowe iyo Hotel Urubo maanta waa maalin aad u qiimo badan waxa la dhagax dhigayaa wadadii weyneyd ee 30 sano inoo dhismayd ee dhaawacyadu gaareen waxaan aad ugu mahad celinaynaa dhammaan shacabka Garowe ka qayb qaatay ururinta lacagtani waa $1 oo la saaray biyaha iyo korontada laakiin maanta macno weyn bay samaysay macnaha ay samaynaysaa waxay tahay dalkeena inaan ku dhisano waad u jeedaan maanta waxaynu gaarnay inagoo aan u baahnayn donor ama wadamo lacagina siiya inaynu wadadan 250,000 oo dollar aynu ku bixinayno waxaan rabaa inaan idin sheego lacagta JBLG-gu sanadkii uu Garowe siiyaa waa 240,000 oo dollar lacagta aynu hadda ugu talagalnay wadadan inaan ku bixinana waa 250,000 oo dollar oo inagu aynu bixinay waxa muuqata haddaynu inagu isku tashanno inaynu inta iyo in ka badan qaban karno $1 ayaa maanta halka inoo maraya maxaa u maleynaysaa haddaynu 2 bixin lahayn 3 bixin lahayn 5 bixin lahayn 10 bixin lahayn waa awoodnaa inaynu bixinno dalkeena marka aynu ku dhisanno inaguna aan deeq bixiyayaasha rasmiga ah ee dalkooda hagaagsada noqon wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guriyeenta Puntland Axmed Bashiir Muuse oo isna goobjoog u ahaa madasha dhagax dhigga wajiga koowaad ee dib u habeynta wadadan oo ay qaadatay shirkadda TNT ayaa isaguna ka hadlay waxaan fariin halkaan uga dirayaa gaadiidka iyo dadka bulshada ah ee wadadan isticmaala haday ahaan lahayd kuwa ku hor ganacsada haday ahaan lahayd kuwa mara dhamaantood waxaan leeyahay daliishii iyo degmada Garowe wax ma qabato iyo wixii dhamaanta waa soo hartay degmadu waa taa shaqadii u kacday waxaan rabnaa marka cid walba inay la shaqeyso ay shaqadu meesha maraysa qaybteeda ka qabatay haday ahaan lahayd dadkan kabarada meesha ku haysta wadada ay u yaalin badeecooyinka inay ogaadaan meelaha fadhiyaan oo in wadadu mari doonto loo sameyn doono wadada dhisankeeda markii la keeno biyo mareenadii iyo meelihii baakinka iyo intaba lagu xisaabtami doono marka waxaan rajaynayaa qof waliba inuu bartiisa kala shaqeeyo Ciise Maxamuud Ciise wararka SBC Garowe